السلام عليكم. miyaa ogtahay caruurteena dhibaatada ugu weyn oo anaka maybe markaa yarana haysa jirno oo hadda haysato moogtahay haddaa ogaan anaa kuu sheega caruurteena dhibaatada ugu weyn oo haysato waxaa weeye waa bullying oo caruurta kala dhibaatada u keena caayda aflagaadada liidka oo la liidaayo dhibaatada kale ilmaha kale ugu keena anaka markaa yaryaraan haddii caruur kale waa israfeena meesha ku dhamaatay soo ma laakiin meesha saas ma caruurta special haddaad degan tahay dibadda special dibadda si kala baxdaa marka haddaad degan tahay waayo hadda madaxweynihi wuxuu naga sheegaa maqloosiin marka caruurtii marka madaxweynaha waxaas sheega caruurtii kale ajaanibka ahayd caruurteenana halis u gali karaan marka waxaa u baahanahay marka caruurteeno dhibaatadaas marka ugu dhacdo ama qof ku aflagaadee ama saa dhacday yaa u tagi lahayd maxaa samey lahayd qofkee la xiriiri lahayd waxaasoo dhan inaan kala fariisano oo si hoose caruurteena ugu warqabno more than ever before marka special wiilasha waxaa uma sheegtaan badana haddii la qodqodo waa fiicnan waa sana iska celi kara baba ay dhaha laakiin caruurtaada waxbarashadooda hoose u dhaceysaa maxaa la dhihi jiray qof nii jabsane noqsana kalsoonidooda hoose u dhaceysaa maxaa la dhihi waxyaabo dhibaato badanaa ku dhacay maxaa la dhihi maskaxiyin dhibaato u gaareysaa marka laakiin haddaa ka warqabin soo dhibaato ma marka waa inaa mar walba caruurtaa la shakeysaa mar walba caruurtaa ka warqabtaa anaga qaas ahaan waa bixinaa cashiro ku saabsan intiiba dhibaatadaas kugu dhicin oo intii caruurka bullying lagu sameynin sidaa ugu hortagi lahayd cashiradan waxay kaloo ku saabsan yihiin oo caruurta aan siinaa sida goolashaada u gaari lahayd sida adiga naftaada kor u qaadi lahayd sida adiga iskula hadli lahayd sida dadka kale ula hadli lahayd iyo waxyaabo badan oo caruurta ka faa'iideen marka asa waalid haddaa tahay dhakhtarka adigaa ah maxaa la dhihi jiray macalinka adigaa ah maxaa la dhihi jiray psychologiga adigaa ah waayo waalidka waxaasoo dhan koofiyaal badan waxaasoo dhan asagaa xambaarsan marka wixii caawinaad dheernoo lagu caawin laakiin adiga caruurtaada la fariiso maalin habeen caruurtaadiga saaxan adigoo la sheekeysan caruurta wax badan xataa kaa baahno telefoonada la iska wada dhigo oo 10 daqiiq 20 daqiiq la fariiso 30 daqiiq adi waa un